waxaan xasuustay dalka intaan socdo inta hooyee fariin ii soo daratay ubadkii baa layga qaatay ii soo ducee ubadkiiba jeel igaga jiro xabsu daa'im lagu xakumay ii soo ducee runtii tiro ma leh laakiin dhibtaa waxaan kaga baxaynaa waa qadarkaan aaminsannahay ilaahay baa inala dardaarmay innakana oo inagu le yaa ayuha aladiina aamanuu duulkii alliya nebi rumeeyayow ittaqu llaha ilaahay ka yaaba ilaahay ka baq taqwadu waa maxay ilaahay adeec ha caasin ilaahay ku shukri ha ku kufrin ilaahay xasuusnow ha halmaamin ilaahay adeec oo amarka ilaahay yeel oo haddaad ilaahay adigu amarkiisa aad yeesho waxaad ogaataa noloshaadii baad toosisatay ugu waman yattaqi allaaha yajcal lahu min amrihi yusraa ilaahay baa le qofka alla ka baqa qofka ilaahay ka baqa ilaahay ka cabsada baa ilaahay leeyahay noloshiisoo dhan waxaan ka dhigaynaa fudayd lacagtu nolosha ma fududayso dhulkaaga oo laga tago dhul kale la tagaana nolosha kuma fududaato macluumaadkan adduunyada aqoontan adduunka oo lagu talax tagana nolosha kuma fududaato boqortooyo iyo masab iyo madaxtinimo lagu fadhiisana nolosha kuma fududaato nolosha waxay ku fududaataa waa ilaahay cabsidiisa markaad ilaahay jalla wacalaa aad raalli geliso ee ilaahay ku abuuray aad adeecdeed ilaahay aad caabudid markaasay noloshaadu adigana kuu fududaan nolosha diintaa fududaynaysee lacagtu nolosha ma fudaydisee ogow waman yattaqi allaha yajcal lahu min amrihi yusraa qofka ilaahay ka baqa cabsida ilaahay macnaha ugu yara culammadu ay ku macnayaan waxay yidhaahdeen wixii macruufa ilaahay ku farana waa inaad la timaadaa wixii munkara ilaahay uu kaa reebana waa inaad ka reebtoonaataa salaadu waa amar xijaabku waa amar gabadha muslimaddu inay gurijoog noqoto waa amar ninkaaga inaad adeecdo wixii wanaaga aad ku adeecdona waa amar labadaada waalid inaad baari u noqoto waa amar gabadh asturan oo mu'minada oo isdhowraysa inaad noqotona waa amar amarkaa ilaahay qofka qaata noloshiisa waxaa looga dhigayaa fudayd ilaahay baa kuu fudaydinaya bimacnaa maciishadii kugu adkaani mayso guurku kugu adkaani maayo tarbiyadda ilmahaagu kugu adkaani mayso nolosha adduunku waxay kuu noqonaysaa wax dhib yar waa markhaatima doonto waddannadan iyo mujtamacaadkan aad dhex timaadeen iyakoo inaga dhaqaalo badan oo inaga maado badan cidhiiriga ay ku jiraan ay ku nool yihiin anuu inii sheegi maayo ininkaa iiga warramay dadkiina dhulkan yimiday ayaa ka warramaya ummaddan aad u timaadeen rafaadkii cidhiiriga ay ku jiraan laakiin marka horeba annagu waxaan haynay cilma alyaqiin waxaan haynay waman acrada can dikrii fa inna lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa qaala rabbi lima xashartanii acmaa waqad kuntu basiira qaala kadalika aatadka aayaatuna fanasiitaha wakadalika alyowma tunsa ilaahay baa qur-aankiisa horeyba noogaga sii warramay waaqiciina maanta waad aragteenoo waad soo taabateen qof allihii qofka ilaahay ka jeesta taacaddiisa qofka ilaahay macrifadiisa diintiisa ka jeestaba ayaa la yidhi adduunka dusheeda noloshiisu waa cidhiirya ha ogaado maalinta aakhiro ee la soo saarana isagoo waxba arkaynin ayaa banka qiyaama la soo joojin markaasuu odhan doonaa rabbi lima xashartanii acma ilaahow maxaad ii soo saartay indhala'aan adduunka dusheeda waan indhaqabo waxbaan arkaayey oo qof wax yaqaano oo wax bartay oo culumtan teknolojiga aad u furtay oo waxa bini aadamku ay manaafacsadaan qof soo saaray oo wax yaqaano oo wax arka ayaan ahaaye waa maxay ilaahow indhala'aantan aad igu soo saartay markaasaa lagu odhan doonaa ilaahay aayaadkiisii oo dhan baa kuu yimiday waad ka jeesato waad is ilowsiisay adigana maanta waa lagu iloobay baa lagu odhan doonaa adduunka dusheeda haddaad allihii ku abuuray aad ilowday nolosha lagugu talagalayna haddaad ilowday
adigana maanta waa lagu iloobaa la odhan doonaa halkaaba lagaga dhaqaaqi doonaa marka cidhiidhiga waxaa lagaga baxaa waa diin cidhiidhiga noloshu hadday diin ka weecatana waxay ku dhacdo cidhiidhi ogaada diin hadday nolosheennu ay saaran tahayna innaka la calaa hudan mustaqiim waa hanuun waa dariiqii mustaqiimkaad saaran tahay marka waad ogtiinoo baabuurku hayweyga hadduu in yar ka weecdo asaga iyo dadka saaranba khatar bay galayaan bini aadanka ilaahay waddu u sameeyey waddo hadday bini aadanku waddada ka leexdaan ayakiya waxa saaranba way burburayaan ogaada imaa yaatiyannakum minii hudaa faman tabica hudaaya falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun allahu rabu alcaalamiin aadam calayhi asalaam oo aabbaheena iyo hooyadeen xawaa markii arrada loo soo dhaadhiciyey jannada laga soo dhaadhiciyey ayaa ilaahay ku lahaa aniga xaggayga hanuun baa iniiga iman doonaa hanuun waa shareecad dhaqan diinaad ku dhaqantaan baan idiin soo diri doonaa haddii hanuunka ay raacaan awlaadaadu baa lagu yidhi ciddii hanuunkaas soo raacda adduunka dusheedana wax ka cabsiisa arki mayso aakhirana kuwa murugooda maaha baa lagu yidhi haddaad dooni inaad cabsoonin haddaad dooni inaanad murugoonin haddaad dooni adduunka dusheeda inaanad ku cabsanin aakhirana aanad ka murgin haddaad doonaysid haddaad dooni labada daaroodba inaad ku liibaanto hanuunka ilaahay soo dejiye raac hanuunkaasina muxuu ka kooban yahay xaqa ilaahay buu ka kooban yahay kow xaqa ilaahay ku abuuray ha iloobin allah ha iloobin allah waa wasiyadii nebi nuux calayhi salaam oo inankiisa kula dardaarmuu ku lahaa labana waan kuugu dardaarmayaa labana waan kaaga dardaarmayaa buu ku yidhi labana waan kugula talinayaa inaad qaadato labana waan kaaga talinayaa ya ka dheerow labadaan kugula talinaya waxa weeyaan allah waddaara alaakhira allihii ku abuuray ha iloobin daarta aakhirana ha iloobin labana waan kaaga digayaa alkibru waalcujb kibirkana iska ilaali kibirka iyo iscajabinta labadaana waan kaaga nasteexeeye iska ilaali buu yidhi labadaas waa labada bini aadanku dunuubta waaweyn ay ku galaan weeyaan qofka mutakabirka ee kibirka badanna janno ma galo qofka iscajabiyana xaqu qalbigiisa ma dega baa la yidhi ilaahayna ha iloobin allihii ku abuuray daarta aakhirana ha iloobin ukhtilmuslima gabadha muslimadda waa inaad ogaataa xaqa koobaad waxaa kugu leh allihii ku abuuray baa kugu leh allahu rabu alcaalamiin ha iloobin ilaahay kuma iloobina siyaad ku iloobi adiguba ilaahay jeclow khaasatan innaka ilaahay waa ina jecel yahay markuu ilaahay naga dhiga muslimiin diinta islaamka ee xaqa ilaahay nagu leeyahay ina bartay ee xaqa nebigeenna muxamed calayhi salaatu wasalaam ina bartay ee xaqa labada waalid inagu leeyihiin ina bartay ee xaqa ninkaadu kugu leeyahay ku bartay ee xaqa jaarkaadu kugu leeyahay ku bartay ee xaqa qaraabadu kugu leedahay ku bartay ee xaqa ilmahaagu kugu leeyahay ku bartay diintaa macaanee xuquuqda khalqiga alle oo dhan kuu tilmaamaysa diintaa macaan ee noloshaada waxay ku toosayso dhan ku bartay ilaaha ku siiyey ee kuugu nicmeeyey ilaaha ha iloobin jeclow ilaahay oo ilaahay jacaylo ku caabud oo aamin ilaahay caza wajalla oo qadarka ilaahayna aamin waa keligii ilaahay haddaad baahatana baahidaada keligii u sheego asmaa binta abibakr asidiiq radia allaahu canhuma ayaa ninkeedii zubayr binu cawaan baa safar buu ka aado uu baxay ayadoo inanteeda khadiijo markaa xambaarsanoo caloosha ku haysato markaasaa sahaydii ay uuga tegay baa ka goodo ka dhammaatay gabadh yahuudiyadoo deris ay ahaayeen baa neef qalatay dherigaa la karinaya carfigiisiiba aqalka iigu yimidda bay tidhi deedna markaasaan maaragtaanay gaajadii iyo baahidii aan u qabay cunnada intay igu siyaaday ayaan wareego waxaan ku yidhi qori daba oon dab ku shitay isii baan ku idhi bay tidhi waa sifaadka gabadha muuminadda uu cumar ku ammaanay mu'minatun hayinatun layinatun cafiifatun gabadha muuminadda sifaadkaasuu cumar bnu khataab ku sheegay waa gabadh muuminada hayinatun oo dabacsan layinatun oo jilicsan waa gabadh hayina ah bimacnaa ninkeeda u hoggaansan wixii wanaag oo dhanna maaragtaanay si dhib yar ku qaadata layinatun jilicsan oo dabacsan oo ninkayga u dabacsan noloshana u dabcisa awlaaddeeda tarbiyaddeedana u dabacsan
dadka jaarkayga u dabacsan qaraabadeeda u dabacsan cafiifatun dhowrsoono hadday baahan tahayna baahideeda cidna aan u sheegin asmaa binta abibakar radia allaahu canhuma gabadhii dariska yahuudiyadda intay u wareegtay bay ku tidhi qori dabaan u baahanahay isii dab baan ku shidanaya markaasay tiri ujeeddadaydu qoriga igama yahayna waxay iga ahayd ha istiraada gabadhan waa dariskaagii ninkeediina safar buu kaga maqan yahee adiguna waa adiga neef qashee bal dheriga wax uga dar ha istiraado ayaan islahaayo xaqaaga maaragtaane ha garato laa natanaw ahlalkitaab maadaama ahlalkitaabkuna diintii nebi muuse ay ku abtirsanayeen xaquljaarka waxbay ka yaqaaneen laakiin ilamay fahmina bay tidhi qori daba unbay ii soo dhiibta bay tidhi markaasaan ku noqdo waxaan ku idhi bay tidhi qorigii dabka waa iga baktiye haddana bal qori kaloo daba ii dhiib haddana imay fahmin markii labaadna qori daba unbay ii dhiibtay tidhi cajiib haddana markii saddexaad baan ku noqday haddana qori daboo saddexaad bay ii dhiibtay tidhi haddee toole markaas ayaan gurigeyda intaan ku soo noqday ilaahay baan baryo waan ooyey tidhi oon idhi ilaahow ninkaygii yaa rabbi ninkaygii ilaahow diinkaagu u socday oo safar diineed buu igaga maqan yahee baahideeda adiga unbaa ii dabooli kara ilaahu baahideeda ii dabool bal gabadhaas iyo gabdhaheenna maanta isbarbar dhiga iyaku raggooguna diin bay u safrayeen dumarkooduna aqalladooda iyagoo ku sugan ayay gaajada iyo rafaadkii u adkaysanayeen nolosha adduunyadu inay yar tahay bay fahmeen inay aakhiradu ay weyn tahay bay garteen deedna adduunka dusheeda rafaad kastoo la soo darsay way adkaysteen wayna ka baxeen iyagu guul bayna kaga baxeen guul bay kaga baxeen oo way guulaysteen iyagu ninkii yahuudigii ee neefka loo qalay ayaa gurigiisii kolkuu soo galay ayuu xaaskiisa ku yidhi hal dakhala calaykum axad qof maynii soo galay markaasay ku tidhi haa gabadhan dariskeenna carabiyadda ayaa ii timidoo dab bay i weydiisato qorigii dabkaana waa siiyey ninkii yahuudigii wuxuu yidhi dherigaa aadii karisay ilaahay baan ku dhaartoo wax ka cuni maayo ilaa gabadhaa muslimadda carabiyadood wax uga dartid mooyaane idaa sa'alta fas'al illaaha wa ida istacanta fastacin billah buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa ghulaam innii ucallimuka kalimaat cabdillaahi bnu cabbaas radia allaahu canhuma oo ghulaam oo wiil dhallinyaro ah ayuu nebigeennu calayhi salaatu wasalaam oo xadiiskaa u sheegayaa fii xajati alwidaac fii yowmi carafa markaa buu nebigu ku yidhi yaa ghulaam wiilkan yarow kelimaad baan ku barayaa ilaahay ilaali adigana ilaahay baa ku ilaalinaye ixfad illaaha tajidhu tujaahaka baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay ilaali bimacnaa waa maxay amarka ilaahay ilaali hal allihii halkaad u kacda adigana ilaahay baad ka heli doontaaye ilaahay baad ilaalin waxay ka dhigan tahay waajibaadka ilaahay ku saara ilaali oo amarka ilaahay ilaali gabadhu muuminaddu inay caqiidadeeda iimaankayga inay ilaashato waa amar ilaahay hadyiga nebigayga moxamed calayhi salaatu wasalaam inay ilaashatona waxa weeyaan waa amar ilaahay caza wajalla salaadda inay gabadha muuminaddu ay ilaaliso awqaaddeeda waa amar ilaahay tabaaraka wa tacaala asturka iyo gurijoog inay gabadha muuminaddu noqotona waa amar ilaahay tabaaraka wa tacaala haddaan ilaahay amarkiisa aad ilaalisid adigana ilaahay baa ku ilaalina ogow ixfad illaaha ilaahay amarkiisa haddaad ilaaliso adiga ilaahay baa ku ilaalin ilaahay meeshuu kugu ilaalin meel kastoo jegta ilaahay baa kugu ilaalin dhulka ilaahay baa iska leh cirka ilaahay baa iska leh biyaha dhexdooda ilaahay baa iska leh buuraha dhexdooda ilaahay baa iska leh walilaahi maa fi asamaawaati wamaa fi alard wa kaana allahu samiican basiira ilaahay tabaaraka wa tacaala samaawaadkii araadiinta dhexdooda wixii ku sugnaadoo dhan asaga ayaa iska leh sifaadka ilaahay uu leeyahayna waa maxay waa samiic weeyaanoo makhluuq oo dhan hadday ilaahay ay baryaan oo ilaahay baahidooda u sheegtaan ilaahay waa ka maqlayo weeyaan waana ka arkaayo weeyaan meeshaad doonta joog zamankaad doonta joog dadkaad doonta dhex joog haddaad amarka ilaahay aad ilaalisid adiga ilaahay baa ku ilaalin weliba ilaahay caza wajalla maaha rabbigeen caza wajalla midaad afriiqiya kaga timaadeene allahu rabbulcaalamiin waa macana wa huwa macakum aynamaa kuntum wallaahu bimaa tacmaluuna basiir meeshaad doonta joogoo teg ilaahay waa macaago waa kula jira haddaad barida baryadaada uu aqbalayaa
haddaad adeecdana ilaahay raalli buu kaa noqonayaa haddaad raalli geliso ilaahay isaguna uu ku raalli gelin haddaad gargaar ka dalbatana ilaahay adigana waa kuu gargaari asmaa binta abi bakr sidiiq radia allahu canhuma ilaahay bay bariday baahideeda ilaahay baa u daboolay maantana dadka muslimiintu dul gaala intay ku soo qaxeen ayo been bay sheeganayaan been bay sheeganayaan siday hunguriga u helaan hunguriga dhuuni yabiicu diinahu bicaradin min addunya dad badan oo muslimiina maanta adduunyada dusheeda waxay ka samaynayaan nabigeena muxamed calayhi salaatu wassalaam ayaa 1400 sano ka hor sii sheegoo yidhi zaman baa soo socda buu nebigu yidhi zaman oo qofku mu'minnimu ku waabariisan gaalnimana uu ku galabaysan gaalnimana mu'minnimana uu ku galabaysan gaalnimana uu ku waabariisan waana zaman buu nebigu yidhi hee diintiisa dhan qofku wuxuu dhaafsan doonaa buu nebigu yidhi lacag yar buu dhaafsan doonaa dad badanoo maanta muslimiina inay caloosha buuxiyaan bay been u sheegayaan inay maaragtaane dhar yar oo fiican ay xidhaan ayay been u sheegayaan inay ciyaalkoogu u cayilaan ayay been u sheegayaan wamaa calimuu maynan ogaanin qofka beenaalaha ilaahay inuu necab yahayna ma ogaan الصدق ينجي والكذب يهلك بالنبي عليه الصلاة والسلام runtu qofka way nabadgelisaa beentuna qofka way halaagtaa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam mu'minku been ma sheego gabadha mu'minadu been ma sheegto waa la weydiiyey nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu yidhi yaa rasuul allah qofka mu'minku bakhayl ma noqon karaa waa noqon karaa buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka mu'minku fula ma noqon karaa wuu noqon karaa buu nabigu yidhi qofka mu'minku been ma sheegi karaa markaa buu nabigu yidhi may been ma sheegi kara buu yidhi iimaanka iyo beentu labada isma galaan billaahi calaykum maaha ininka xumaana ininka naguma tuhmayno laakiin waxaa nagu maqala inay jiraan gabdho dhulkeenniiyo dadkeennii ka soo jeeda oo si waddankan lacag ay uga helaan raggooda ku leh war waad ila nooshahay baan qoraynaa xagga dawladda saan lacag uga helno ee aqal gooniya deg adiguna ilaahay muuna ku arkin baan moodi ilaahay ma laga dhuuman karaa laa yakhfaa calayhi shay'un fi alardi walaa fi asamaa ilaahay caza wajalla samaduna ilaahay waxba kama qariso dhulkuna waxa ku dhex jiro ilaahay kama qarin karo asmaa binta abi bakr sidiiq radia allahu canhuma gaajadeedii way qarsato way adkaysatay baahideedii ilaahay bay u sheegatay ilaahay baahideedii waa u daboolay yahuudigii baa ilaahay dubba ugu soo dhiftoo la yidhi u khidme u adeeg isagii baa yidhi cuntadaa aqalka aad ku karisay wallaahi inaan dherigaa waxba ka dhadhamin ilaa gabadha carabiyadda kuu timiday oo aad wax uga dartin mooyaane markaasaa saxni dhan oo hilbiya maraqa la ii soo diroo la ii keena bay tidhi anoon cidna aanan weydiisan laakiin ayay weydiisatay ilaahay bay weydiisatay cafaaf bay lahaayeen cafaaf allahayna siiyeenna kana sabir bay lahaayeenoo qadarkay aaminsanaayeen iyagu sabir ummu sulaym radia allahu canha ilmaheegii oo xanuunsan ayuu ninkeedu safar u baxay safar abu talxa qisadaasi meelo badan waan ka sheegay maxaanan uga sheegayn dadka aan ugu yeedhayna dadku inay ku daydaan waa asxaabu muxammadin sala allahu calayhi wasalam waxaan raggana ugu yeedhaynaa war raggii nebi maxamed la joogay ee la odhan jiray asxaabu muxammed raggaasaa liibaanoo horumar raggaasaa gaadhe war ku dayda ragga haweenkana waxaan leenahay war dadka horumarka gaadhay waa dadku nebi maxamed soo tarbiyadeeyey nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam ma dhisin waddooyin waaweyn iyo itisaalaad iyo diyaarado iyo dayaxgaxmeed iyo waxaan zamanka teknolojiga aan u naqayno barahan guuxaya iyo barahan wax iibinaya iyo barahan ku qaadaya nebi maxamed uu la soo bixi karaya khayraadka arlada ku jira laakiin waxaas inuu qiimo lahayn buu garanayey markaa waxaa nebigu kama shaqayn birana ma hagaajin dhulna ma jeexin waddooyinna ma dillaacin buurana ma faqin walaakiin nebi maxamed dad buu ka shaqeeya dad buu nebigu hagaajiyey dad wuxuu soo saaray raggooguna ay ilaahay ku xidhan yihiin dumarkooguna ilaahay ku xidhan yihiin meeshay wax ka jiraan ayaka waa la baray iyaka meeshay wax ka jiraan ay wax walba laga maamulo waa xagga ilaahay weeyaan waxau nebigu soo saaray jiil aan dhulkaba ku xidhnayn oo samada ku xidhan oo xagga sare eegaya halka dadka maanta zamankan dhulkaan eegaynaa innaku
dhulkaan eegaynay ayaa dhibtaa maanta ina baday. hadday dadka muslimiintu ilaahay baryi lahaayeen oo wixii qadar xagga alla uga yimaadana u adkaysan lahaayeen ay sabri lahaayeen dhibaatada way ka bixi lahaayeen. laana dhibaatadu xagga allay ka timaadaa, dheeftuna xagga ilaahay bay ka timaadaa. inna maca alcusrin yusra baa ilaahay yidhi. hadduu culays haddii ummad ay aragto waxaad ogaataa fudaydka ka dambeeya waa badan yahay ogow. culaysku waa mid, fudaydkuna uu daba socdaayo waa 2 iyo 3 isdaba socota weeyaan. ummu sulaym radia allaahu canha ninkeediibaa safar buu u baxay isagoo ilmihiisii markaa uu xanuunsan yahay. markaa buu soo noqday, safarkii kolkuu soo noqday habeen buu aqalka soo galay. wuxuu yidhi ummu sulaym, ilmahaygii yaraa waa sidee bal ka warran? markaasay ku tidhi sidaad kaga tegtay wuu ka xasilooni badan yahay, waabaad soo daashay iska nasabay ku tidhi ilmaha maxaa ku xasuusiyey. cajiib. markaase gogoshii bay u dhigtay, cuntay u soo diyaarisay, biyihii bay u keentay, habeenkiina ninkeedii way la seexatay. saqdii dhaxabi iyay ku tidhi jaarku hadday jaarka kale alaab ay ka soo caariyaystaan oo ay yidhaahdaan alaabtaad naga qaadateen noo soo celiya, mayna u celiyaan baa mise waa inay u diidaan? markaasuu abu talxa yidhi maya, marka horeba soo iyaka kamay soo caariyaysanaa, waa inay u celiyaan. bal siiqadda ninkeeda ay wax uga dhaadhicinaysa eeg. markaasay ku tidhi ilmaheennii yaraa adiguna maan lahayn aniguna maan lahayn, ilaahay baa inoo dhiibtay, allihii inoo dhiibtay baa la noqdo uu qaatay. anigu waa sabro waan adkaystee, adiguna iska sabiro, weliba meydkiisi waa ka halkaa ku duuduubane kacaw iga soo aas bay ku tidhi. taariikhda halkee lagu arkay gabadh halkan ninkeedii ku dul raalli gelisay gogoshan ilmaheegiioo meydan uu halkan u duuduuban yahu u yaallo. bal siday gabadha qadarka u aaminsan tahay eeg. ta kale ninkaygii siday mooraalka iyo niyadda ugu dhistay bal arag haddana ay u tawjiihisay. gabadha muslimadda dadkaasaa la rabaa inaan ku dayanno oon adduunyada dhibkayga waxba u arkinba. dheefta adduunyadana gabadha muuminaddu waxba uma aragto, dhibaatada adduunkana gabadha muuminadda iimaankana waxba uma aragto. waayo waa nolol yaroo gaaban oo dhimashaana sugaysaba. maxay tahay? aabbahay baa dhintay, hooyaday baa dhimatay, ayaygeen baa dhintay, dadkii aan ka soo jeednoo dhan waan xeraynay, waan dhaadhicinay. alam najcal ilarda kifaata axyaa'an wa amwaata baa ilaahay yidhi. miyaanan dhulkan bini aadanka aan ku fillaysiin? waan ku fillaysiinay hadday wax garanayaan weeyaan. kuwa dhintayna arlada caloosheeday ku jiraan, kuwa noolna arlada dusheeday socdaan baa ilaahay yidhi. wixii dad inaga horreeyey oo dhan waan dhaadhicinay, adiguna maalin baa tareenkaad ka dhaadhici doontaa. marka gabadha muuminaddu dheefta hadday aragtana ma qooqdo, ma kibirtee, ilaahay bay ugu shukridaayo ilaahay bay ugu dhowaataa. dhibaato hadday aragtana ma argagaxdo, ma quusatee, way sabirtaa, way adkaysataa. qadarkay aaminsan tahay ayadana ilaahay bay ugu dhowaanaysaa. taana allah ina fahamsiiyo. qaabkay ninkeeda u soo dhowaysay baa cajiib ahaa habeenkaas. cajiib. hooyo weeyaan, waad naga qalbi jeclisan tihiin, waad naga naxariis badan tihiin. ilaahay baa naxariistaa inagu abuuray ninka. waxaan xasuustay dalkaa intaan socdo inta hooyee farriin ii soo daratay. ubadkii baa layga qaatay, ii soo ducee. ubadkiiba jeel igaga jiro, xabsu daa'im lagu xakumay, ii soo ducee. runtii tiro ma leh.
laakiin dhibtaa waxaan kaga baxaynaa waa qadarkaan aaminsannahay. nu'min biqadaa'ihi wa qadarihi jalla wacalaa. wixii ilaahay nagu xukumayna raalli baan ku nahay, wixii ilaahay noo qadarayna raalli baan ku nahay. gabadha muuminadda waa inay noqoto gabadh saabirad oo sabir badan oo adkaysi badan. dhimashadana ilaahay baa qadaray, dhalashadana ilaahay baa inoo qadaray. marka dadkaasoo ku dayanaa ku daba liibaanaynaayo ogaada. horumarku ma aha noloshan sidaa dadku ay u fahamsan yihiin ma aha. waad aragteen dadka dhulkan aad ugu timaadeen innakoo sheeganayna dhulkeennii dhibaata inay ka dhacday oo soo qaxay ayaad haddana aragteen dadka aad u timaadeen inaad idinku ka dadnimo fiican tihiin, ka nolol fiican tihiin, ka farxad badan tihiin, oo aad weli hooyadiiyo ubadkaygii isla joogaan, xaasaskiina ay xaasas yihiin. mujtamacan aad u timaadeenna waad aragteen noloshay ku jiraan iyo cidhiidhigay ku jiraan. yaa u maqan gabadha muuminadda markaa waa inay noqota gabadh saabirada oo muxtasibada. abu talxa radia allaahu canhu intuu kacay ayuu nebigeenna u tegay calayhi salaatu wasalaam. qisadii buu u sheegay u yidhi gabadhii umu sulaym ilmahaygii oo dhintay xalay intay iga qarisay saq dhexa ii sheegtay, ilmihiinna maaragtaane wuxuu dhex jiifaa maaragtaane gurigu ii dhex yaallaa maydkiisii. markaabuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ma murugoon mana argagixina wuxuu ku yidhi acarrastumu laylata yaa abaa talxa, xalaytoola maaragtaane xaajiyaddaada ma aragtayoo ma is aragteen? haa, markaan iyadii aan is aragnay kadib bay ii warrantay buu yidhi. markaabuu nebigu ku yidhi is-araggiinni xalay allah inii barakeeyo buu ka yidhi. is-araggiinni xalay allah inii barakeeyo. ducadii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa ilaahay u aqbalay. caloosheedii habeenkiiba ilmaa ilaahay geliyey. 9 bilood kadib ayuu nebigu u yeedhay anas ow kaale buu ku yidhi hooyadaa may dhashay? may weli ma dhalin. wuxuu u sheeg caaw way dhalaysaa, wiilna way dhalaysaa. ilmaha inta iyadu naaska ayna ku duwin aniga ha la ii keena buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. anas binu maalik wuu u sheegay hooyadii yaa umma hooyoy wiil baad dhalaysaa. nebigaa soo sheegay calayhi salaatu wasalaam. warka nebi maxamed uu sheegayo maahayn aalad waxa sheegtay ogow, waa war saadiqu lmasduuq. wamaa yantiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa callamahu shadiidu lquwa duu miratin fastawaa. nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay waa waxyi weeyaan. maadaamuu nebi maxamed kalaamkiisu waxyi uu yahay, ummu sulaym habeenkii waxay diyaar u tahay inay dhalayso, wiil weliba ay dhalayso. timirta cajwada la yidhaha bay u diyaarsatay. markay wiilkii ay dhashay bay ku tiri anasow qabo. maradii intay ku duubtay qayd ku laabtay u dhiibtay. timirtaa cajwadana nebiga u geebay ku tiri oo iigu raacay. timirtii baa nebiga loo keenay calayhi salaatu wasalaam iyo wiilkii yaraa. timirtii buu nebigu afkiisa intuu geliyey ayuu dhareer buu ka dhigay dhareer. markaasuu nebigu yarkii yaraa buu afka ugu shubay afkiisa. fasamaahu cabdullaahi buu nebigu u bixiyey. sufyaan binu cuyayna waa nin culummadii culamaa'ulxadiid ka mid ahaa raximahullah. waxa uu yidhi wiilkii yaraa oo waxaa la arkay 9 wiiloo culumu dhalay baa layidhi isaguna markii dambe. ilmo barakaysan buu noqday. limaadaa muxuu u barakoobay? gabarh barakaysan baa dhashay. nebi barakaysan baa habeenku caloosha ku dhacayna u duceeyey. nebi barakaysan baa dhabtiisa ku qabtay. nebi barakaysan baa magaca u bixiyey. nebi barakaysan calayhi salaatu wasalaam ayaa qandhuuftiisii afka u geliyey. markaasuu dhalay ilmihii 9 wiiloo culamaaya ayuu dhalay baa layidhi. maxaa keenay nicmaddaas? sabirkii baa keenay. adkaysigay adkaysatay baa keenay. innakuna wixii ilaahay noo keeno waan aaminsannahay qadara, waan sabraynaa. waa inaan diinteenna istiqaamo ku yeelannoo sabirno. dhalashaduna waa amar ilaahay. inuu qofku dhasho waa amar ilaahay, inuu dhintona waa amar ilaahay. amarka ilaahayna bini aadamku kama baxsan karaan. laakiin intaad dhimashadii dhalashada u dhaxaysa ayaa la doonayaa inaad noqoto gabadh muslimada oo mu'minada oo ilaahay taqaano ilaahay raalli gelisay. marka kow xaqa koobaad ilaahay baa nagu leh iyo nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam. nebigeennu calayhi salaatu wasalaam diinta inoola yimiday waa diin saalixun likulli zamaanin wa likulli makaanin bay yidhahdeen culummadu.
zaman kastoo la joogo dhaqankii wanaagsanaa ee nebi maxamed uu inoola yimiday unbaa ku habboon in lagu dhaqmo meel kastoo la joogana waxaa ku habboon dhaqankii nebi maxamed in lagu dhaqmo haddii noloshii nebi maxamed la qaato waa la badbaadi haddii noloshuu nebigu noola yimidee la qaadan waayana waxaad ogaataa adduunkani aakhira waa la khasaari dhaqanka nebi maxamed uu inoola yimiday waa dhaqan adiga ku ilaalinaya sharaftaaduu ilaalinaya karaamadaaduu ilaalinaya noloshaaduu ilaalinaya dhaqaalahaaguu ilaalinaya dhiiggaaguu ilaalinaya diinta nebi maxamed saddexdaasay ilaalinaysay qofka bini aadanka dhiiggiisiina way ilaalisay dhaqaalihiisa way ilaalisay sharaftiisa meel lagaga dhacana way ka diido way ilaalisay marka ilaahay caza wajalla han u soo noqonno han toobadkeenno oo nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam hadigiisa ha raacno oo nolosha nebi maxamed uu noola yimidda waa noloshee awlaadda in la tarbiyadeeyo oo dhaqanka wanaagsan lagu tarbiyadeeyo awlaadda in loo naxariisto aqrac binu xaabis baa nebiga u yimid oo yidhi wuxuu arkay nebigu xasan iyo xuseen intay la joogaan ay la ciyaarayaan isdhunkanayaan markaabuu yidhi yaa rasuul allah oo ciyaalkeena ma dhunkataan markaabuu nebigu yidhi haa anu intaasoo wiil baan dhalo weli midna ma dhunkan buu ku yidhi markaabuu nebigu yidhi maxaan kuu sameeyaadee haddii qalbigaaga ilaahay naxariistii uu ka saaray haddii qalbigaaga naxariistii laga siibay maxaan kuu sameeyaabuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka muslimka waa inuu ahaado qof naxariis badan oo ilmihiisa u naxariisanaya oo gabdhaha u naxariisanaya oo wiilasha u naxariisanaya ininkana si khaasaba ilaahay baa naxariistaa inigu abuuray oo waa maxay baa tihiin waxaa bashar adduunka jooga oo dhan masnaca lagu sameeyey waa raximkuna gudihiinnu ku yaallaa raximku ragga kuma yaallay ininku inigu yaallaa ilmo kasta oo dhasha bilaa ilkuu dhalanaya cunto haddii la siiya ma cuni kareen laakiin ibta uu caanaha ka cabbaya waa naaskiinna weeyaan meesha uu tarbiyadda ka qaadanaya waa dhabta hooyada weeyaan hooyadu hadday hagaagtana ilmaha noo hagaagay hadday hooyadu hallowdana ilmuhu way hallaabayaanoo ogaada nin sheekhoo culummada islaamka ka mid a ayaa isagoo yar oo agoona ayay hooyadii baa layidhi ayay ku dartay hooyadii safar bay ku dartay waxay tidhi safarkaa raac bay ku tidhi safarkaa raac oo magaalada u raac lacagtaana hayso magaalada baqhdaad gal culummada masaajidda joogta cilmiga ka soo baro adoo caalim noqday mooyaane ha igu soo noqon bay ku tidhi innagana maanta waxaa laga yaabaa hooyooyinkeen qaarkood inay ilmahooga ku yidhaahdaan habeen dhowayta anigoo jooga waddanka magaalada helsink nin dhallinyaraa ii yimiday markaasuu dhibtuu soo maray buu iiga warramay markaasaan ogahay dhallinyarada liibiya iyo suudaan iyo rafaadkaas soo maraysa in waalidadooda waddanka ay ku dhibaan oo murug badan ay maaragtaan u horseedaan baan ogahay oo qaarkood waalidadoodii markii layidhi ilmahaagiibuu magafa haystaa aqalladii ay ku jireen intay iibiyeen ayay lacagta u soo diraan si ilmahooga aanan maaragtaana keliyaha loogala bixin markaasaan ogaa naxdinta ku imanaysa waalidada markaasaan ku idhi lacagta safarkaa aad soo gashay kharash meeqaa kugu baxay ii sheeg wuxuu idhi 4,500 baa igu baxday markaasaan ku idhi labadaada waalid ma kaa warqabeen markaad soo baxaysay waxaan la yaabay markuu igu yidhi haa hooyaday aabahay waa iga warqabeen oo iyakaa soo diray buudi hadday waalidada qaarkood ilmahooga ay halaag leeyihiin u halaag naftaada saad lacag u soo dirto waxa dadkii wanaagsanaa ilmahooga intay u shaqeeyaan ee lacag siiyaan ayay ku odhan jireen magaalada baqhdaad gal masaajidda culummada rabbaaniyiintae fadhida cilmiga ka soo baro adigoo caalim oo daaciyo rabbaaniya mooyaane ha igu soo noqon bay odhan jireen yarkaa yar marka safarkii uu la socday ayaa niman mooryaana habeenkii dhexda intay u galeen ayaa la qabtay dadkii oo dhan markaasuu qof walba lacagtu watay buu qarsanayaa isagii tuugii horreeyee qabtay baa ku yidhi waryaa wiil ka yarow lacag adu maxaa wadataa ii sheeg markaasuu u sheeguu ku yidhi lacagta intaa leeg baan wataa markaasuu halkay ku jirtaa meeshanaa ku haystaa soo saar uu soo saaray wuu u dhiibay markaasuu ku yidhi adeer lacagta intan leeg maxaad iskaga sheegtay dadku waa kuwa lacagihii qarqarsanaye markaasuu aniga hooyaday baa igu tidhi weligaa been ha sheegin haddaad beenalow noqotaa ilaahayna wuu ku nacayaa aadamiguna wuu ku nacayaan kelmaddii baa ninkii madaxiisa jebisay baa la yidhi danna markaasuu gacanta qabtay ninkii mooryaanta ugu weynaayo booska ahaayoo meel fadhiya buu u geeyey xoolaha intan leeg ilmahan yar baa wata markaan ku idhi maxaad lacagta u sheegtayna wuxuu igu yidhi hooyaday baa igu tidhi weligaa been ha sheegin
haddaad beenaala noqotaa ilaahayna wuu ku nacayaa bini aadamkuna way ku nacayaan markaasuu ninkii tuugta ugu weynaa ayaa iska ooyey markaasaa lagu yidhi maxaa loo ido wuxuu yidhi hadday hooyadii oo kale la mid noqon lahayd aniguna tuug ma noqdeen buu yidhi lacagtiisa u celiya yarka yar dadkaana xoolahooga u celiyo sii daaya ina kaxeeyo ilaahay hanu noqonaha toobadkeenna buu yidhi tarbiyadda hooyadu waa taas hooyada wanaagsan tarbiyadda wanaagsan ee ilmaheegu ka qaato mooriyaanta ayay beddishaa laakiin hooyadu hadday xumaato ilmaha nebi uu dhalay bay beddishaayo ogaada hooyada wanaagsan tarbiyadda wanaagsan ay ilmaheega siiso mooriyaanta ayuu awliye ka dhigaa laakiin hooyada baanaatee ee lunta ee hallowdee xumaata ilmaha nebi ay dhala bay beddishaa daraba allahu mathalan liladiina kafaruu imra'ata nuuxin wa imra'ata luut kaanataa taxta cabdayni min cibaadina saalixayn fakhaanataahumaa falam yugniyaa canhumaa min allahi shay'a waqiila idkhula annaara maca addaakhiliin qur-aankaa ilaahay tabaaraka wa tacaala uu nooga warramay nebi nuux calayhi salaam maadaamay zawjadiisu ay khaa'intay oo gaalada hoosta ay kala shaqaynaysay ilmaheegiina iyada tarbiyaddeedii buu qaatay ogow ilmaheegii maadaamuu ilmuhu inta badan hooyada ag joogo wakhtiga u badan ilmuhu hooyo ku agbixiyaa ilmihii yaraa tarbiyadda hooyadii baa saamaysay gaalnimuu ku dhintay waa ka yidhi sa'aawi ilaa jabalin yacsimunii min almaa qaala laa caasima alyawma min amri illaahi ilaa man raxim waxaala baynahuma almawju fakaana min almughraqiina waa ka qur-aanka ilaahay kaga warramay ee la yidhi gaaladii buu ka mid noqday oo wixii kuwii qarqoomay buu la qarqoomay baa la yidhi maadaamay hooyadii ay baanaatay tarbiyaddii xumayday hooyadii uu ka qaatay ina nebi isagoo ah haddana aakhiradii buu seegay uu khasaaray marka ilaahay tabaaraka wa tacaala hanu soo noqono ilaahay hanu toobad keenno oo ubadkeenna diinta wanaagsan ha ku tarbiyadayno oo ubadkeenna akhlaaqda wanaagsan dhaqanka wanaagsan ha ku tarbiyadayno dhaqanka wanaagsan khaasatan waddannadan aad timaadeen dadkaad u timaadeen isku dhaqan ma nihin innagu diinteennu waa diin islaama diinteenna islaamku waxay qof walba xuquuq bay saartay xaqna way u yeeshay xaqa raggiinna aad ku leedihiin haddaad ka weydaanna sabro adkaysta laakiin xaqa raggu ay nagu leeyihiin iska gudo iska ilaaliya maxaa yeelay gabadhu hadday ninkeeda xaqiisa garan weydo cuquubadiiyo inkaartu markaaba ubadkeega ku dhacdaa baa la yidhi halka ninkuna hadduu labadiisa waalid xaqooga u garan waayo cuquubadiiyo inkaartu ilmihiisay ka soo baxdaa gabadhuna hadday ninkeeda ku gadoofasho xaqa ninkeedu ku leeyahay markay garini weyday ku tumato ee xaqiisa inkirto inkaartu ubadkayga kaga soo baxdaa baa la yidhi ma doonayo inaan ka sheekeeyo qisas aan ka maqlay waddannadan aad joogtaan laakiin waxaan ku dhaafayaa ceeb allaha asturee ilaahay ceebteenna ha asturo walaalayaal soomaalida waxay tidhahdaa caanadaatiba la daba qabaye han isdaba qabatayno waa inaan imanay dhulkan ma ahayn runtii xaqiiqatan laakiin mar haddaan imannay sideen ku badbaadaynaa waxaan ku badbaadaynaa waa inaan diinteenna ku adkaano walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun islaamnimadaada ku adkayso oo noqo gabadh muslimada oo 24 saaca muslimada oo mu'minada noqo oo haweenkana ku dadaala maaragtaane inaad ubadka dhallinyarada aad badbaadisaan seen ku badbaadinaynaa akhlaaqda wanaagsan waxaa ka mida in guurka la fudaydiyo dhallinyaradeenni waad arkaysaanoo mujtamaca waxay ku soo dhexdhaceen waa mujtamac laa diin iyo diinba aan lahayn waxbana ka xaaraan maaha mar hadduu qofku diinba aan lahayn wax walba uu iska samayn karaa maadaama mujtamaca ubadkeenni aan la dhex imannay waa inaan guurka fudaydino weeyaan oo nabigeenna moxamed aha calayhi salaatu wassalaam ina moxamed calayhi salaatu wassalaam gabar ka sharaf badan adduunka ma soo marin mana soo mari doonto guurkeeduna fudaydkuu lahaa dhegayso cali buu nebigu u yimidde maalin ma guursatay weli may ma guursan buu yidhi
de maxaad u guursan weyday oo nebi allow ani ayaa ii guurin ila cali agoon buu ahaa nebigaa intii u dambaysa koriyey baa la yidhi laanna nebiga sala allahu alay wasalam adeerkii rumaa dhalay markaasuu yidhi yaa anigaa ii guurin markaabuu nebigu ku yidhi anaa kuu guurinoo faaduma ku siina ka warran buu yidhi faaduma haddaan ku siiyo markaasuu cali sii jeejeesto uu xishooday markaabuu nebigu ku yidhi yaa cali waxba ha jeejeestan buu yidhi faaduma ku siiye buu ka yidhi dad u yeedh ma odhan labadoodaan wada hadlaaya markaa buu idhi meherkaygana u soo diyaaray oo nebi allow meherkeen haystaa waad ogtahay xaalkayge wuxuuhi dagaalkii aan maalintaa gallay berihii dagaalka lagu dagaalamaya gaashaannada ee gaalada ka furannay qaybtii aan ku siiyey miyaanan haysan oo nebi allow birtaa wayba daxalaysatoo daxal baa fuule ayaa iga qaadan markaa buu nebigu taa uun magaalada geeyo iibiyo intay noqotaan faaduma meher uga dhigaynaayo buu yidhi 3 dirham bay noqotay 3 dirham saddexdii buu u keenay markaa nebiga sal allahu alay wasalam markaa buu nebigu yimid dee faatuma dee waan ku bixiyey aabbo oo ayaadi siisay dee cali baan ku siiyey buu yidhi cali baan ku siiyey way jeejeesatay markaa laana gabadha dhallinyarada ee weli aanan la guursan marba hadday aamusto aamuskaasi waa calaamatu ridaa weeyaan sumtuhaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam hee aamuskeedu waa idankeedii buu rasuulku yidhi markaa buu nebigu yidhi faatuma qadiifaddanna qaata buu ka yidhi barkintanna qaatoo barkada weelkaana biyaha ku dhaasada buu yidhi caawan caroosad baa tees diyaari buu ka yidhi waa muxamed calayhi salaatu wasalaam inantii uu dhalay waa afarta uu nebigu yidhi sayidata faatuma iyo khadiija iyo maryama iyo aasiya ridwaanullaahi calayhim ajmaciin dhammaantood allaha raalli ka wada noqday haweenkaa saalixaadka allaha raalli ka wada noqdee waa afarta haweena baa la yidhi ee haweenka jannada galaaya ugu darajo sarraysa ugu barwaaqaysa buu rasuulku yidhi gabadha afartaa ka mid ahayd weliba uu nebigu yidhi faatuma sayidata nisaa'i ahliljanna uu gaara si gaaruu nebigu magaceega u sheegay waa gabadha uu nebi maxamed uu leeyahay qadiifaddaana ku seexda barkintaana barkada weelkaana biyaha ku dhaasada markaasay u tagtay ninkeedii waa caqdigii baa dhacay deedna uu la aqal galay markaasay faatuma radiallahu canha biyahana iyadaa soo dhaaminaysa baa la yidhi yaa qooshkana waxaa la yidhi burkana markay samaynayso labada dhagaxee waxa lagu ridqa gacanteeday ku ridqaysay qooshkana gacanteeday ku xashaysay markaasaa gacmahaygii baa noqday dhagax gacmihii baa noqday adayg cali bnu abi aalib radia allahu canhu isaguna beerta intuu magaalada madiina beeraley weeyaan nimanka beeralayda intuu beerahooga tago ayuu biyaha u soo saaraa biyaha markaasuu baaldigii biyuu beerta ugu shubaba xabatibuuna mushqaayad u qaataa gacantiisii baa noqotay isagana dhagax maalin maalmaha ka mida iyo labadoodii baa isku yimid oo waxay yidhaahdeen cali baa yidhi faatuma bal gacmihiisa ay adkaadeen eeg markaa bay ku tidhi cali anigana gacmihiisa ay adkaadeen bal arag bay ku tidhi dadka adduunyada la siiyey jacaylo looma siin dadka ilaahay uu jeclaa waa dadka rafaadka ku noolaayo ogaada adduunyada iyaka waa laga ilaalinayey dadka la siiyey adduunyada lama jeclay ka dhigan tahay dadka ilaahay uu jecel yahay adduunyada uu ka ilaalshadaa ilaahay diin buu siiya iyaka diin buu ilaahay siiyaa marka cali baa maalin soo orday wuxuu arkay markii dagaal baa dhacay gaaladii jabtay ayaa dadkoogii dumarkoogii raggoogii addoommahoogii xoolahoogii baa la soo qaaday magaalada madiinaa la keenay markaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisu u qaybinayaa markaas saasuu u sii siinayaa markaasuu faatuma ahba maanta xoolo badan baa ilaahay u keenay dad fara badan oo addoomaan asxaabtaa loo qaybinayaa orada u tago bal inaad wax nooga soo qaaddo markaa bay soo socotay nebigay u timiday markaa buu nebigu saxaabadii ku yidhi iiga barnaya bui inantaydii baa ii timide markaasay u soo dhowaatay markay haw sheegtad ay tidhi ayay xishootay deedna halkaabay istaagtay markaa buu nebigu uu soo kaco wuxuu hi ha xishoona waxaad u baahan tahay ii sheeg markaa bay ku tidhi yaa rasuula allah xoolaha intaa leegna way kuu yimaadeen wadiga saxaabadaadii geela iyo xoolaha iyo dahabka iyo lacagta iyo shaqaalaha u qaybinaye aniga gacmahaygi meenad erkaysay u adkaadeen dadkana shaqaalo nooga qabo xoolahanna wax naga sii bay ku tidhi markaa buu nebigu ku yidhi sal ly sl intuu madaxa u taabtay uu ku yidhi
aqalkaa kaaga daba imanaya iska soco buu ku yidhi markaabay soo noqotay uu yimiday waxuu u yimiday baa la yidhi habeenkii iyagoo sii seexanaya oo qadiifadii dhinacan ay goglanayeen dhinacan ay ka huwanayeen hoosta ka galay unbay arkay nebigoo dul taagan oo dul jooga markaasuu cali xishooday ila waa soddogii baa dul taagane inantiisiina meeshu kula jiraa markaa buu nabigu ku yidhi calaa rislikumaa buu ka yidhi madaxa intuu qabtay labadoodii ayuu yidhi ha kicinee halkiinaa fadhiya buu yidhi laa ilaaha ila allah ha kicina buu ku yidhi halkiinaa iska jiifa lacag iyo xoolo iyo dad inii shaqeeya waan ini siin karaa laakiin waxaan inii siin waayey baan nii sheegi haddaan ininka ini siiyo waxaa lagu sheekayni doonaa muxamed calayhi salaatu wasalaam halka saxaabadiisii ay gaajo la dhimanayaan ayuu hantidii uu dowladda islaamka iyo dhaqaalaha diinta uu ku helay ayuu ubadkiisii iyo reerkiisii siiyey bay odhanayaan buu yidhi laakiin xoolo aan ini siin lahaa iyo dad inii shaqeeya oon ini siin lahaa wax inaga khayr badan baan inii hayaa waa maxay markaad habeenkii aad jiifanaysaan waxaad tidhaahdaan subxaana allah 33 goor dhahada alxamdu lilah 33 goor dhahada wallaahu akbarna 34 goor dhahada buu nebigu ka yidhi adkaar buu siiyey waa tasbiixaat alfaatimiya ayaa la yidhahdaa maalinkii oo dhan baa la yidhi daalka qofka muuminka uu soo galo adkaartaa kolkuu habeenkii akhrista baa la yidhi tacabka ilaahay waa ka qaadayaa sidaasuu nabigeennu sala allahu calayh wasalam qoyskiisa uu adduunyada uga ilaalinayey guurkooguna sidaasuu u fududaa asxaabta rasuulka marka maadaama dhul fasaad badan uu maanta adduunka iska jiro oo fasaadku meel walba uu ku batay maanta oo waxyaaba badanna maaragtana dhulkani ay ka jiraan oo fasaada oo dhulkeenni aanan ka jirin waa inaan dhallinyaradeenna guurka u fudaydinno weeyaan aqalladeennana qur-aanka inaan ku akhrisanno suuratu albaqara waa kii nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam laa tajcaluu buyuutakum maqaabira aqalladiina qabuuraha ka yeelina buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam fa ina ashayطaana yanfiru min albeyti aladii tuqra'u fiihi suuratu albaqara baa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam aqalladiina qabuuraha ka dhigina maxaa yeelay aqalka dadka dhex jooga salaada aynan tukanaynin qur'aanna aynan ku dhex akhrisanaynin dikrina ay ku dhex samaynaynin diinna aynan ku dhex baranaynin aqalkaasi waa qabri bannaanka ka dhisan dadka ku dhex jirana buu imaam tirmidi waa dad intay lamid yihiin buu yidhi aqalladiina qabuuroo kale ha ka dhigina buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay suuratu albaqara aqalka dhexdiisa lagu akhrista buu nebigu leeyahay shaydaanku aqalkaa waa ka farxaa waxaan igula dardaarmaynaa lafahaygana kula dardaarmayaa inaad aqalladiinana maaragtaanay aad qur-aanka ku dhex akhrisataan oo ubadkiinnana sunnaha nebi maxamed aad bartaan sunnatu tacaam aadaabta cunnada lagu cuno aadaabta loo jiifsado aadaabta dharka loo xidho idanta yaraanteeda asturka bar tarbiyadda islaamku ilmahaaga bar waan ognahay waddannadan duruufo badan inay jiraan laakiin haddaan ilaahay amarkiisa ilaalinno inninkana ilaahay baan ilaalina ogaada khayru lkalaami maa qalla wadalla hadal badan waxaa ka khayr badan hadalka yaray murtida leh ilaahay hanu soo noqonno han toobadkeenno oo han iscafinoo heese saamaxno xanuun kale oo soomaalida u gaara ayaa jira waa xanuunka qabyaalada alqabaliya dacuuha fa inahaa muntina buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam qabyaaladda ka tega buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam qabyaaladdu maaragtaana waa qurmuun buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam waa qurmuun qabyaaladdu waa qurun ayuu nebigeennu sheegay sala allahu calay wasalam inay tahay hadalkaa goormuu nebigu yidhi waa markuu abudar alkhifaari uu bilaal uu ku caayay hooyadii uu yidhi in hooye madow waar kan hooyadii madowdahayo buu yidhi ereygii baa nebiga loo sheegay calayhi salaatu wasalaam deedna markaabuu nebigu abudar buu ku yidhi weliga adiga jaahiliyaddii baa kugu sugan buuhi khaslad jaahiliyaddii baa kugu jirta yaa abaadar inna fiika khaslatun jaahiliya buu nebigu yidhi ka taga buu nebigu yihi qabyaaladda iyo cunsuriyadda waa qurune buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam ka taga buu nebigu leeyahay qabyaaladii waa qurune marka ilaahay hanu soo noqonno oo ilaahay casa wajalla hanu toobadkeenno oo maaragtaanay
dalkan aad timaadeenna waxyaabaha aan ku badbaadi karnaa waxa weeyaan inaas haysataan saas ku haysataan oo midnimo aad muujisaan oo qoysku midnimo ay muujiyaan oo dadkeenna luqada soomaaliga ku hadla khaasatan midnimo aan muujinno muslimiintuna ay midnimo muujiyaan taasaan maaragtaane aan ku wajihi karnaa dhibaatooyinka maaragtaane maanta adduunyada ka taagan dadka waddankan aad ugu timaadeenna dhaqan wanaagsan tusa akhlaaq wanaagsan kula dhaqma maxaa yeelay waxay haysteen iyaku waxbay naga siiyeen laakiin nicmadda islaamka ilaahay innaka uu ina siiyey ee adduun iyo aakhira lagu badbaadaayey maxaan ka siinay waa kaas si diintu nolosheenna u timaaddo oo ubadkeenna innakuba aan u badbaadno raggiinnana maaragtaane dacwadda iyo dadaalka diinta maaragtaane u dira dadaalka diinta iyo dacwadda culammada keliya ha ku dhaafine raggiinna waa inay diinta ka shaqeeyaan haddaad tidhahdaan war tagsiilo noqon 15 saaca u shaqeeyo waxau kuu keenaya inay xaaraan tahay ilaahay baa iyo inay xalaal tahay waa inaan qanaaco ku shaqaynaa qanaaco 8 saacadood qofka hadduu adduunyada ka shaqeeyo intiisa kale wakhtina reerkiisa ha ku bixiyo wakhtina masaajid iyo dacwadda ha ku bixiyo dardaarankaasaan nagula dardaarmayaa wixii wanaag iyo khayr ii soo dhex marina ilaahay baa i waafajiyey wixii akhtaa iyo gafaf iga dhacayna waa wax aniga iga dhacay oo shaydaan xaggiisa ka ahaaday allahna inoo dembi dhaafo allahna ina cafiyo kolley waa ducooyin baad soo qorateen baan u malayn wixii su'aalaad qabtaan anu su'aalaha kama jawaabo caalim mayhi anu caamada ayaan wacdiyaa bifadli illaahi caza wajalla sheekh cali iyo culummo fuqahaaya inila joogta wixii masaa'il diiniyana iyo ka iniiga jawaabaya anigu waan inii ducaynaya marka u dambaysa allahna inagu anfaco بسم الله الحمد لله ثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذنبنا الله عداف ذنبنا والدينتنا الله عداف دينت الله ينوم عليه أرلكنا الله شافي ومتادكنا الله ونحرست أمن إيمانك الله ينوم عدكي استقامة دينت الله ينوم سيد حشوتك إيا حجابك إيا حياة الله ينوم أرزاق أولادنا الله ينوم توسيد وحين نغلو سنة الله ينوم سوهدي wixii laynaga qaatan allah inooga soo celiyo wixii jaalasha ku jirana jaalasha allah inooga soo daayo wixii balwad iyo shaydaanka iyo mukhadaraadku la tegan allah inooga soo celiyo dhaqanka wanaagsan ee ilaahay uu nagu arsaaqay islaamka allah inagu toosiyo albaabada toobadda allah inoo furo gaalada dhulkan aan ugu imanana albaabka hidaayadda allah u furo gaalnimada allah uga naxariisto cadaabka uu cadaabaya ilaahay waxba u qaban maayaane allah soo hadeeyo hidaayadda allah ku galladaysto innakana baaba tooba allah inoo furo waalidiinteenna wixii dhintay allah u naxariisto wixii noolla allah uga daba naxariisto dad badan oo inala jooga iyo kuwa inaga maqan baa duca dalbanayee qaar ubadkii ka maqan yihiin qaar waalidadii ka tegeen qaar bukay mid walba halkuu ka kurbaysan yahay kurbada allah ka faydo dadka muraadadalena muraadadoodo macsiyo lahayn gacanta midig allah ka siiyo dhallinyaradeenana guurka allah u fudaydiyo gabdhahana xishoodka iyo xijaabka iyo xayaaga allah ku arsaaqo wiilashana akhlaaqda wanaagsan iyo masaajida tacmiirkeeda allah u dhibinayo dalkan ilaahay baa ina keeno qadarta allaan ku imanee allah inagu ilaaliyo diinteena allah inagu sugo isma haday kara allah ina hadeeyo sala allahu calaa nabiyina maxamed